shaydaanka sifooyinkiisa inay ka mid tahay inuu qofka bani aadamka u soo dhowaado oo uu waswaasiyo tashuushu ku furo mararka qaarkoodna inuu dhuunto oo uu ka fogaado xanuunka noocaasa qofka lagu ibtileeyo waxa waajib ku ah sida aayadaasi marka koowaadba tilmaantay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sharka waswaaska shaydaanka uu ka magan galo waayo waswaasinta shaydaanku shar badan bay dabada ku wadataa qofka bani aadamka waxaa laga yaabaa inuu ka bilaabo tahaarada oo istinjada iyo waxyaabaha uu ka shaki geliyo oo ku yidhaahdo kaadidii kaamay dhammaan oo qofkii saacado badan uu ku jiro suuliga isagoo aaminsan inaanay kaadidii ka dhammaan marka dambena waysada uu ka shaki geliyo oo qofku xubnihiisa uu maydho tiro badan oo ka badan intii shareecadu ay jidaysay amaba se waysadii oo aan ka jabin uu is yidhaahdo waysadii baa kaa jabtay iyadoo arrintaasi ka dhalatay waswaasinta shaydaanka waxaa laga yaabaa intaa inuu la sii dhaafo salaadii qofka uu ka waswaas geliyo uhaa mabaad xidhanba salaadii oo qofku uu ku celceliyo un takbiirtii tii salaada lagu xidhanayay amaba se uu yidhaahdo faatixadii maad akhriin waxaa laga yaabaa intaaba xaaladdu inay ka sii darto qofka marka dambe uu ka shaki geliyo xikmadda ku jirta cibaadaadka oo ku idhaahdo ilaahay salaadaada muxuu ku falayaa ama soomkaaga faa'iidaba ilaahay uma lehe iskaba daa ilaahay jiritaankiisa inuu ka shaki geliyo marka dambe ayaa dhacda halka qofka uu ku wadaana waa halkaa gaalnimada isagu uu ku dhacayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku nacdalay ee naarta jahannama inuu galo ilaahay ugu xukumay taasuu la doonayaa qofka markaa dagaalkaasi uu ku socdaa waa marka koowaade horta waa inuu dareemo inuu dagaal ku socdo waxaa mushkilad weyn iyadoo qofka xanuunkaasi uu hayo aanu is ogeyn oo uu isleeyahay xaaladaadu caadi bay tahay mar labaadka markuu dareemo inuu dagaalka noocaasi uu ku socdo waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka magan galo cid la magan galana ilaahay baa subxaana wa tacaala u weyn oo gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku tidhi acuudu billaahi minka rasuulku wuxuu uhi laqad cudti bicadiimin waxaad magan gashay mid weyn mar saddexaadka qofku waa inaanu rumaysan waxaa shaydaanku u sheegayo wasaawistaasi uu ku akhriyay qalbigiisa uu ku tufaayo waa inaanu ka aqbalin uu ku celiyo waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey sida bukhaariya muslim baa wariyeen can rajulin yukhayalu ilayhi annahu yajidu shaya fi salaa nin salaada markuu galo un la moodsiinayo inay wax ka yimaadeen oo neefi ay ka soo baxday faqaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa yaanu salaadiisa ka bixin buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la moodsiinaya aanu maqlin ilaa uu hubsanayo yaqiinsanayo inay neefi ka soo baxday oo dhawaaqeedii uu maqlaayo ama urteedii uu dareemayo haddii aanu yaqiinsan shaki yaanu salaadiisa kaga bixin waayo inuu salaad ku jiraa saxa mid la hubaabay ahayd walyaqiinu laa yazuulu bishaki waxa marka hore la hubayna shaki meesha lagagama saaro mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qofka inuu maqashiiyo waxaan jirin amaba inuu sanka u saaro waxaan jirin gaar ahaan dadka xanuunka waswaasku hayo marka qofku waa inuu arrintaa ku hubsado inuu dadka kale
u dhow wax weydiiyo waxaanad maqlaysaa ila kelida dhagama liidada kale ma kula maqlayaan hadday maya tahay dee waa waswaas yaa dhagaysanin haddii dada kale ay kula maqlayaanna waa wax jira urtanaad sheegayso dadka kale ma kula urinayaan haddii xaaladaadu xaalatul waswaas ay gaadhay haddii dadka kale aanay urinahayn ila iyaguba san bay leeyihiin waxani waa wax lagu moodsiinaya sida ninkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey qofku waa inuu ogaado haddii wasaawista shaydaanka uu hoggaansamo waxa uu leeyahay uu fuliyo oo isagoo og inuu waswaas hayo istinjadii uu ku celcelinayo ama weysadii ama takbiirtii ama faatixadiiba uu ku celcelinayo waa mid qaatay amarkii shaydaanka shaydaanka in laga amar qaataana waa xaaraan ilaahay baa yidhi alam achad ilaykum ya bani aadama an laa tacbudu shayطaan inahu lakum caduwun mubiin miyaanan idin amrin oonan idinkula ballamin bani aadamow shaydaan inaydaan caabudin dad amarkiisii qaadato waa nooc cibaadadiisa ka mid a oo miyaanan idiin sheegin inuu cadow idin yahay cadowtinimadiisu ay caddahay oo shaki haba yaraatee aanu ku jirin marka culimadu kutub gooniya bay ka qoreen alimaam ibnu qudaam raximah llah wuxuu qoray kitaab la dhaha damu lwaswaas dhaleecaynta shareecadu ay dhaleecaysay waswaaska waxyaabay kula dagaalami jireenna waxaa ka mid ahaa markaa shaydaanku wasaawistiisa uu ku furee dhegta uu saaro ayay odhan jireen beenaalaa tahay yacnaa naftooday ku odhan jireen fii anfusihim ayay ka odhan jireen beenaalaa tahay hal cindaka shaahidaani cadlaan laba markhaatiyo oo markhaati gala ma haysaa dee ma laba markhaati buu shaydaan kuu keeni doonaa wasaawistiisu markaa way jabi doontaa haddii sidaa aad ku tidhaahdo laakiin haddii arrintii uu kuu sheegay aada fuliso midba mid bay kuu dhiibi doontaa ilaa diinta uu kaa saaro amaba se ilaa aada waalato sida dad fara badan ku dhacday oo caqligaagii uu khalkhaliyo ilaahay baynu wasaawistiisa ka magan gelaynaa ee dagaalka noocaasiya waa in la dareemo wallahu aclam